عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وسلامتي أصحابتي ميل وباجوتان عشرة كوري وحن كسو براني momentum وانت لو حنو يغنى the principle of momentum principle of momentum كو marka الشيء ويهي balance وحن رأينا الشيء سوا equilibrium سيدا أوجد the total the sum of the anti-clockwise moment is equal to the total the sum of the clockwise moment لو هذا حوق بس لكانا and anti-clockwise moment حوق أو حلقي هاي the clockwise moment سؤالها عقنا قرأ واحد يستا halkaas waa center of tension effect on pivot la yiraahdo marka dhinacan midigta oo qaabka saacad oo kale xooga u soconayo waxa la dhahaa waa clockwise movement qaab xooga lidka ku ana waxa weeye waa anti-clockwise movement waa saacad lidka saacada marka xoogna wuxuu soconayaa sida saacad oo kale waa clockwise movement xoogna wuxuu soconayaa ka soo horjeedka saacada waa lidka saacada waa anti-clockwise movement sida awgeed xooga hadda halkan kale hadaan xoog kala dhigo noqonaya waa clockwise movement hada xagan laba kala dhigana waa anti-clockwise movement ka badanaya oo laba xoog saddex xoog wada noqonaya isku wada sameeyaan marka xoog walba xagan lagu wada daro waxay caawinayaan anti-clockwise movement xoogaas asla badanaya waa isku daraya marka the sum of the anti-clockwise movement noqonayaan xoogan hadii xagan xoog kala fara badan la dhigana waxay noqonayaan waa clockwise the sum of the clockwise movement sida awgeed shaygu markuu balance yahay labada xoog bas leekaanaya clockwise movement iyo anti-clockwise movement sida uu sheegay markuu leeyahay waa balance waxaan oranaa shaygaas waa equilibrium marka equilibrium markuu yahay shaygaas waxaan oranaa the force acting of the system cancel each other xoogaga micnaheedu ku dhacay systemkaas bas ka salgareynaya marka xoog anti-clockwise movement-gu haduu leekaado clockwise movement-ga anti-clockwise movement-gu haduu leekaado clockwise movement-ga shaygu wuxuu noqonayaa zero marka waa shaygaas wuxuu noqonayaa waa balance marka the equilibrium waxa weeye the total anti-clockwise moment is equal to the total clockwise moment labada isleekaanay xooga clockwise moment iyo anti-clockwise moment isleekaanay sida awgeed waxa ku soo tusaale labada qof oo saaran sawga halkan waa center of tension effect on pivot la yiraahdo labada qof oo kala xoog badan midna waa 1 newton midna waa 500 newton laakiin distance ay kala jiraan ba kala dhow kana distance yar buu jira 1 mitir buu jira kana distance ka laba laab buu jira waa 2 mitir buu jira marka saacash lagu soo sheegnay momentumka waxa saameeya labada qodob oo ah waa xooga iyo distance marka hadii uu distance ku bato ama xoog bato labadaas haday bataan momentumku wuu badanaya haday yaraadana wuu la yaraanaya marka sida waxa la dhahaa waxa momentumku direct proportional yahay force and distance mar walba wuxuu saami quman leeyahay xooga iyo distance marka labadaas hadii la badina way badanayaan hadii la yareeyana way yaraanayaan marka momentumku kan hada distance-ki waxa la badiyaa distance-kiisa marka momentumku soo badanaya xoog isagoo yar ba distance-ka la badiyay momentumku saa badanaya isagoo xoogiisu yar yahay kan xoogiisa badan laakiin distance-kiisa yaraada sida awgeed momentumkiisu marka uu yaraanaya marka sida awgeed bay balance u sameeyaan marka labada shay hadeer inay balance yihiin baynu proof gareynana labada qof iyo kala xoog badan in momentumkoodu ay balance yihiin kale marka qofka koowaad oo qofkana person A hadana soo saarno momentumkiisa waxa lagu helaa soo sheegnay waa force times perpendicular distance xoog oo lagu dhuftay distance ku ah xagal quman sida awgeed qofkan waa 1 newton times inta uu jiro oo distance uu jiro oo 1 mitir waxana qoso waa 1000 newton meter waxa weeye waa cabirka momentumka saan hore soo sheegnay waa newton lagu dhuftay xoog waxa lagu cabiraa newton oo lagu dhuftay distance ka meter lagu cabiraa ka labaad isku dhutana waa newton meter marka qofka labaad oo person B wuxuu noqonayaa waa sidoo kale waa force ka lagu dhuftay distance ka waa 500 newton times 2 meter waxay noqonaysaa waa 500 times 2 meter waxay noqonaysaa waa 1000 newton meter marka labadaas xoog bas leekaada iyaga kale xoog badan oo misna distance ka ay batee distance ka yar ka badan yahay labada waxay noqdeen xoog in isleekaadaan waa 1000 iyo 1000 newton meter marka waxaan oranaa sida darteed shaygaas waa balance oo labada xoog bas leeg labada qof ay kala jiraan bas leeg sida awgeed waxaan oranaa the anti-clockwise moment is equal to clockwise moment therefore siso is equilibrium shaygaas waa equilibrium oo xaaladaas waa balance marka su'aalaha laga weydiin karo principle of moment hadan su'aalahan hoose ku soo koobno su'aalaha qofka marka isku iman kara imtixaan ama markuu galayo marka waxaan sanaa sawirkan F1 waa 4 newton distance-ka ay u jirto mar walba waxa laga xisaabinayaa distance-ka waa center of the tension effect oo halka zero qadar aynu ku magacawnay
wuxuu jira 4 meter waa distance-ka kow iyo F1 labadaas waa labadan waa anti-clockwise moment labadan F2 iyo F3 na waa clockwise moment sida F2 waxa jira iyadu waa distance-ka waa 2 meter waxa jira 0 meeshaas center of attention effect waxa jira 2 meter waana 6 newton F3 na waxa jira iyadu waa halkan waxa weey waa 2 meter halkan waa 2 meter marka labadan waa isku daraya mar laakiin dadka qaar waxay isku khaldaan halkan markay F3 arkaan labadan way ku dhufanayaan marka waa inaad markaba ka fikirtaa inta uu jiro the center of attention effect marka waa 2 meter oo lagu daray 2 meter marka waa 4 meter buu jira F3 laakiin inta ay xoogeedu tahay ma garanayo sidaa waa inta su'aalahan kow su'aasha koowaad a aynu eegno waxay soo saartaa xooga 4 newton force and about 0 marka muxuu noqonayaa momentum-kan anti-clockwise moment-ga wuxuu noqonayaa marka waa labadan xoog momentum waxa lagu heli jiray waa force lagu distance waxa marka 4 newton oo lagu dhigtay 4 meter kadibna waxa soo 16 newton meter marka taas waa iska fududahay tusaalaha koowaad labaad waxa la yimsna momentum waxa soo saartaa 6 newton force about 0 marka waa F2 baa lagu weydiiyay marka F2 waxa lamida sidoo kale waa force lagu distance labadan waa 6 newton oo lagu dhigtay 2 meters sida waxaan oranaa F2 times D2 marka F2 waa kan oo D2 na waa intan marka mar walba F2 waxa leedahay distance inta uu jaa xagan u bilaabay marka waa F2 laakiin D3 ayadu ma leh sida waxaan oranaa 6 newton meter 6 newton times 2 meter waxa la mid tahay 12 newton meter sida su'aasha kale lagu weydiiyay waxa la yiri shaygaas ma balance ba hadduu balance yahay xagabuu oo leeyaya marka shaygan inuu balance yahay in kala toona hubinana waxaan ku hubinana marka sida hore soo baranay anti-clockwise moment-gu inuu leekaado clockwise moment-ga ama clockwise moment-gu anti-clockwise moment-ga leekaado waa in is leekaadaan waa muhiimad weyn sida awgeed halkan waynu haynaa iyadu waxa weeye waa 16 newton laakiin labadan xoog marka la isku daro waa kan leekaadaan oo hore waxaan u niri the sum of the clockwise moment-gu iyo la mid noqotaa the sum of anti-clockwise moment marka xoog waynu haynaa laakiin xoogan ma hayno sida awgeed waynu F3 soo saarnaa kadibna aan proof garanay labada xoog si leeyihiin shaygaasina uu yahay equilibrium sida awgeed waxaan oranaa sidaan qaacida ku soo sheegnay clockwise moment-gu wuxuu la mid yahay anti-clockwise moment marka clockwise moment-gu waa labadan xoog la isku daray iyo xoog la leekaada marka saan ku saarka labadan xoog waxaan oranayaa the clockwise moment waxa weeye waa F1 F2 oo lagu dhigtay D2 oo xoogan F2 lagu dhigtay distance-kaas marka waa D2 waa tan oo ku magacawnay iyo tan iyo 6 newton meter sida awgeed oo lagu daray waxa ku darsamaysaa xoogan F3 oo ku darsamaysaa xooga F3 waxa u jira distance-ka u jiro to the center of attention effect waxa weeye waa 4 meter marka waa 2 meter oo lagu daray 2 meter 4 meter sida awgeed oo lagu daray F3 times D3 oo waa distance waxa weeye waa F3 waa magaca aan xooga ku magacawnay iyo distance-ka aan ku magacawnay D3 sida awgeed waxa la mid tahay marka F1 oo lagu tahay D1 marka waa xooga anti-clockwise moment-guna waa iyada F1 baan ku magacawnay distance-kana D1 baan ku magacawnay sida awgeed waxaan oranaysaa marka 6 newton oo lagu dhigtay 2 meter waa F2 waa 6 newton oo xoogeeda iyo 2 meter distance-ka u jiro oo lagu daray F3 iyada ma naqaani xoogeeda oo lagu dhiftay 4 meter oo ah inta uu jirto center of attention effect oo labadaas la isku daraya sida awgeed labadaas waxa la mid tahay F1 oo lagu dhigtay D1 oo ah 4 newton oo lagu dhigtay distance-kooda 4 meter sida waa 16 newton meter xagana waa 12 6 lagu dhigtay waxa weeye 12 newton meter oo lagu daray 4 lagu dhiftay D3 4 meter lagu dhigtay D3 waxa la mid tahay 4 meter D3 waxa la mid tahay 16 newton meter sida awgeed markaan rabo inaan la soo baxo F3 kana laba dhinac ka jiraya marka 12 newton meter baa dhinaca wareejinaya iyadoo meynaysa hadaan laba dhinac ka jiro 12 soo baxayaan 12 newton meter 12 newton meter dhinaca ka go'da sida awgeed 4 newton meter waxa la 4 meter F3 waxa la mid tahay 16 newton meter oo laga jaray 12 newton meter sida awgeed F meter waxa la mid tahay waxa la 4 meter F3 waxa la mid tahay 4 newton meter sida awgeed inaan laba dhinac u qaybiyo markaan F3 doonayo in laba dhinac u qaybiyaa 4 meter kadibna 4 meter kaas iyo 4 meter dhinac u qaybiyo labadana soo baxayaan dhinacana hadaan u qaybiyo 4 meter waxa soo baxaya 4 meter 4 iyo meter soo baxaya kadibna waxa soo baxaya 1 newton marka F3 oo taas ah waxay la mid tahay 1 newton sida awgeed
anti-clockwise momentum iyo clockwise momentum aan eegana marka inay shaygaas uu yahay balance marka xagga waxaan haysanaa anti-clockwise momentum waa 16 newton meter oo ah 4 newton times distance waa 16 newton kana waxaan haysanaa halkana f2 waxaan haysanaa 12 f3 waa 1 newton oo lagu soo distance-kooda 4 waxaan noosaa 4 lagu dhuftay 4 meter lagu dhuftay 1 newton waxaan tahay 4 newton meter kan waxaan 4 newton meter lagu daray 12 newton meter waa 16 newton meter marka 16 newton meter marka oo isleeyihiin markaas marka xoog loo baahan hadii ay shaygaas uu noqon lahaa hadii shayga hadeer aan 4 newton aan la saareen halka newton meter aan la saareen dhinaca wuxuu qolocsami lahaa anti-clockwise momentum marka shaygu marka hore number C su'aashaas marka hore balance ma aha marka hadii lagu dhaho dhinaca uu qolocsami lahaa wuxuu qolocsamayaa anti-clockwise momentum hadii shayga laakiin balance laga dhigi lahaa xoog loo baahan yahay oo su'aasha saddexaad ka shaqeynay what's the force is needed at point F3 to balance the bank si loo balance gareeyo balkan xoog loo baahan yahay waa 1 newton waxa loo baahan xoog ah 1 newton halka la saaro marka waxa weeye su'aalaha ugu muhiimsan waxa weeye shaygaas marka hore balance ma aha oo dhinacan uu leeyahay because 1 newton ma maqan halka newton hadii kala saari lahaa shaygaas balance uu noqon lahaa marka saa inaad ogaato weeyo marka hore aad xooga mar walba distance-kiisa aad ka taxadartid iyo intuu shaygaas u jiro marka waxaan intaasaan kusoo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh casharro kalena waan insha Allah waan noo soo gudbinaa hadii Ilaahay idmo in la soco